بسم الله الرحمن الرحيم دعوة قيمة بدل الله ومركلة إيه برنامج كاني dhaqane waa barnaamij cusub oo inagu talagalnay in aynu kaga warrano ku boorino isku dhiirigelino akhlaaqiyadka iyo dhaqanada wanaagsan iskaga reebno ku diidno iska waanino dhaqanada xunxun maxaynu sidaa u leenahay akhlaaqiyadku ama si guud akhlaaqdu waa asaaska jiritaanka ummadaha waa asaaska diinteena macaan ee diinul islaam waa asaaska qoyska muslimka waa asaaska iyo seeska uu ku taagan yahay shakhsiyadda qofka muslimka haddii khuluqa iyo dhaqanka wanaagsan la waayo waxay ka dhigan tahay macnaheedu waxa aan soo sheegnay oo dhan waxa uu noqonayaa wax hadur ah oo baaba'ay oo bilaash dadnimadii baa baaba'aysa diintii baa baaba'aysa qoyskii baa baaba'aya qofkii baa baaba'aya qarankii baa baaba'aya maxaynu u leenahay waa sida xusnul khuluq fil islaam waxa loo yaqaanaa inuu yahay asaasu diin waana calaamadii noo tilmaamaysa kamaalul iimaan sida adilo fara badan ay tilmaameen waana min a'zami al-ibaadaat cibaadooyinka la sameeyo ee ilaahay subhanahu wa ta'ala loogu dhawaado haddaad cibaado u taqaanay salaada iyo soomka iyo xajka iyo zakada waxa jirta cibaado aan kuwa ka yareyn oo la darajo ah bal mararka qaar kaba sareyn kartaba oo dhaaftaba cibaadooyin fara badan waana kuwa lagu dhawaado ee adoonku ugu dhawaanay ilaahay subhanahu wa ta'ala waana tilmaan وكسفيسنا حبيب كان محمد عليه الصلاة والسلام إلهي مركو كورمي حبيب كان محمد وحوري وإنك لعلى خلق عظيم مركي أمنا عائشة رضي الله عنها كورمسي كما في الصحيح وحي تلي إلو ويديني محمد دقن كيسي هفدقن كيسي واسدي وحي كسو كوبتي كسو رسي كان خلقه القرآن مركي لو حلت الماما إنو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا dadka ka ugu dhaqanka wanaagsan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa inagu dhiirigeliyay inaynu ka dhaqan dhigano oo isku qurxino akhlaaqiyadka teeda wanaagsan bal waxay baan oran karnaaba ujeedooyinkii loo soo saaray loo soo diray nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd in habdhaqankeen uu noqdo habdhaqan wanaagsan inuu dhiirigeliyo habdhaqanka wanaagsan akhlaaqda teeda wanaagsan dhaqanada toosan ee fiican ee wanaagsan kama qaala nabi sallallahu alayhi wasallam inma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq idan mawduuca weyn حسن الخلق إنه كورنا وحا إنه تلمامية أهمية دي قيمة وليه إنه هي أساس الدين قفك مسلم كي وقف طريقة يشيد كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقاضي مريا دقن الآن ودين الآن دين الآن ودقن الآن هذا نقفك دين لهين وبلا دقن هذو بلا دقن يهينا وبلا دين وحينو تلمامي أهمية ديس إنه علامو يهي قفك iimaankiisa dhameystirankiisa oo qofka kale wuxuu ka iimaankiisu ka sareeyay ka dhameystiran yahay sidoo uga dhaqan wanaagsan yahay waxay noo tilmaamay ahmiyada uu leeyahay mawduucani wuxuu sabab u noqdaa dukhulul janna Allahu akbar makaanada iyo heerka uu ka taagan yahay waa mid aad iyo aad weyn fil aakhirah waxaad ku guuleysanaysaa haddii dhaqankaagu wanaagsanaado waana waxyaabaha noo tilmaamay ahmiyada mawduucani maxabada ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo rasuulkiisa maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa ay sabab u noqotaa inay dadku isjeclaadaan qulubtooda oo ziyaado ulfada iyo dadku inay isku soo hiloobaan oo isjeclaadaan umriga ayaa ku ziyaada magaalooyinka iyo dhulalkuna ku camirmaan waana acmaal la qabto kuwa ugu culus xagga miisaanka maalinka qiyaamaha waana daliil iyo calaamad in tusinaysa qofka iimaankiisu heerka uu taagan yahay xusnul khuluq ma ka goyon karno ahmiyada uu leeyahay iyo faa'iidooyinka laga helayo fi dunya wa fil aakhirah amthilada iyo tusaalayaasha aynu doonayno inaynu ka warrano dhaqanadaas waa kuwa la xiriira dhaqanada xagga cibaadooyinka ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ka doonaya markaad adoon u tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala maxay tahay inaad ku sifowdo runtii amaanadii naxariistii sabirkii dhowrsoonaantii shujaacadii cadaaladii deeqsinimadii dulqaadkii saamaxaadii waanu majar waxay doonaynaa kale inaynu ka warrano akhlaaqiyadka laga doonayo qofku markuu dadka la dhaqmayo haddii iib noqoto iyo haddii habdhaqan kale noqotaba waxaanu doonaynaa inaynu ka warrano dhaqanada liita ee xunxun ee qofku samaynayo ee bulshada ku dhex faafaya ee saamaynta taban ku yeelanaya inahaas baynu doonaynaa insha allahu tacaala mawduucan aynu ugu magac darnay dhaqane waa dhaqankeenii iyo akhlaaqiyadkeenii diinteena islaamka ee macaan ay nafartay habdhaqankeena iyo nololeedkeena bulsho ee dhaqanka inoo ayna u dhiirigelinayo baynu jecelnahay inaynu isku waanino isxasuusino isku boorino sidoo kale waxaynu iska reebanaa isku diidanaa dhaqanada kuwa xunxun inaynu la nimaadno waxaynu isku dhiirigelinaynaa inaynu ka dheeraano ka fogaano xusnul khuluq waa jawharadii waa iftiinkii iyo fariintii islaamku fidinayay haddii akhlaaq laga waayo islaamnimadaadu macno buuran sheegi mayso sidaan hore u sheegay waa seeska qofka qoyska qaranka qoomiyadda iyo adduunka oo dhan ku taagan yahay haddii la waayo akhlaaqiyad wax walba way fasahaadayaan hadii ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo ogolaado inaas baynu jecelnahay in aynu ka warrano ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaanu ka baryanaa sida maanta bilowgeedii uu inoogu faa'iideeyay in fariintaasi aniga naga soo gudubto walaalaha inay soo gaadho in intii ilaahay inooga ogolaaday inay noo socoto in ilaahay subhanahu wa ta'ala sabab inooga dhigo inaynu akhlaaqiyad fara badan
haddaynu hore u naqaano inay xasuusin inoo noqoto haddaynaan hore u aqoonna in aynu ogaal iyo aqoon cusub aynu u yeelano haddaynu dhaqan xun iyo akhlaaq xun aynu leenahayna inay waane iyo wacdi noo noqoto kuwii weeleeyo qaatan ilaahay subxaanahu watacaala inaga yeelo ilaahay waxaan ka rajaynayaa fii miisaani xasanaatina in ilaahay subxaanahu watacaala inoogu xoojiyo inahaasinu kasoo gabagabaynana wallahu subxaanahu watacaala aclam waaxkam wabillahi towfiiq